صادوا مدحوينهنا صادوا ay ku martigeliso saldhigga military ee Mareykanka ka samaysto xeebta magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. Sidaasna waxaa laga soo xigtay wakiilka wakaaladda Somaliland u fadhiya Mareykanka Bashiir Good oo warbixintan siiyay warbaahinta caalamiga ah qaarkood oo ay soo xigteen wakaaladda wararka ee Somaliland Somla. Waxaana uu danjiruhu sheegay in ay diyaar u yihiin inay saldhigga Mareykanka ay samaysto Berbera, taasina oo ay wanaagsan tahay danaha labada dal. Somaliland waa dal diyaar in ay saldhig military siiso Mareykanka haddii uu ka shaqeeyo masaalixda labada dal ee Somaliland iyo Mareykanka yeeshaan, ayuu yidhi danjiraha Bashiir Good. Wuxuuna intaasi ku daray in ay Somaliland ka go'an tahay in ay iyada oo dal madax-bannaan ah cilaaqaad iyo iskaashi la yeelato Mareykanka. Dalalka kale ee adduunka. Thomas Wolfe, oo ahaa xildheere lafaguray siyaasadda fadhigeedu yahay Nairobi, ayaa shaaciyay in uu aqoonsiga Mareykanka uu siiyo Jamhuuriyadda Somaliland wanaagsan tahay masaalixda istiraatijiyadeed ee Mareykanka iyo danaha Mareykanka Geeska Afrika. Saldhigga warbaahinta Mareykanka ayaana muddadii ugu dambeysay si weyn u qaadaadhigaysay qadiyadda madax-bannaanida Somaliland oo la sheegay in ay siyaasadda madax-bannaanida Trump ay taabacsan tahay in aqoonsiga Somaliland uu dal labaad ama dal nabad ah oo dimuqraadi iyo dowladnimada shaqeynaya oo ay ku jirto muhiimadda koowaad ee Geeska Afrika ee kasoo ifaya.